munaasabadan tababarka loogu soo xirayay ciidamo boolis tiradoodu gaaraysa 200 muddo 3 bilood ah tababar ku qaadanayay dugsiga booliska tababarka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa maanta waxa ka qayb galay taliyaha booliska Soomaaliyeed Sarayga Bashiir Abdi iyo sidoo kale wasiirka amniga qaranka Maxamed Abukar Islaw iyo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen iyo gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Sheekh Usmaan Barre Maxamed iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan Hirshabeelle iyo beesha calamka waxay wareen dalkaas ka hadlay wasiirka amniga dhaqan celinta dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdulqaadir Aadan Jaalle iyo taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed oo bogaadiyay ciidamada tababarka soo xirmay khudbad u soo istaageen kaliya inaan u hambaliyeeyo ciidanka booliska Hirshabeelle ay dufcadii ugu horeysay ay ka qalin jabiso koorsadan ayaan u soo istaagay inaan u hambaliyeeyo waxaan leeyahay hambaliyo idin hambaliyeenayo waxaan idinku hambaliyeenayaa tababarka idin soo dhamaaday ee aad soo qaateen muddada gaaban waxaad ku soo biiraysaan ciidan baal dahab ka galay taariikhda ummadda Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa in aad idinka ilaahay idinkuna noqdaan ciidan booliisa oo qab leh wanaag leh ummadda shacabka Soomaaliyeed ugu adeega si daacadnimo waxa ismaalkaas ka hadlay wasiirka amniga qaranka Maxamed Abukar Islaw Ducaale oo dhiirigeliyay ciidamadaasi tababarka u soo xirmay waxaan farxadeena ka soo qayb galo xafladan xiritaanka dufcada ugu horeysay 200 ay yeeshaan maamulka Hirshabeelle waxaa kaloo farxadaya ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen oo halkaas ka soo jeediyay kelmadii xiritaanka tababarka ciidamada booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan rabaa inaan kula dardaarmo ciidanka booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa tihiin dufcadii ugu horeysa tihiin waxaa la idinka rabaa dadaal badan inaad amniga ka shaqaysiin la idinka rabaa inaad bulshada si degan ula macaamishiin la idinka rabaa sharciga inaad dhowrtiin la idinka rabaa dufcadaha dambe ee la tababaray haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa la rabaa inaad ku dayasho u naqatiin oo idinku daydaan waxaad tihiin curadkii ciidanka dowlad goboleedka Hirshabeelle curadkana waxaa la rabaa wanaag badan inuu qaybaha kuwa inta kale oo ka dambaysa ay uga daydaan sidaas ayuu noogu xirayaa maanta tababarkii 3 bilood aad soo qaaday Abukar Maxamed Baadle warbaahinta qaranka عاصمة دولة قبلت كرشبيل مقالة الجوهر.